iyadoo gobolka Hiiraan uu ka socdo howlgal lagu ciribtiriyay argagixisada al-shabaab ayaa taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi Sharif al-Arwaaq taliyaha qaybta 27aad General Tawane Axmed Gurey iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen deegaanka teedan ee gobolka Hiiraan deegaankan ayaa ahaa deegaankii shalay lagu laayay argagixisada al-shabaab isagoona taliyuhu kula kulmay nabadoonnada deegaanka saraakiisha ciidamada gudoomiyaha gobolka Hiiraan wasiirro ka mid ah maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaano heer federaal kulanka kadib ayay si wada jir ula hadleen warbaahinta ugu horreyn waxa goobta ka hadlay nabadoon Cilmi Maxamed Barre oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka kaasoo bulshada deegaanka ugu baaqay in loo midoobo dagaalka gacmooda jiray wax ku gooyaan waa u jeediin meeshan waxa wada jooga waa dhaqankii waa shacabkii waa saraakiishii iyo dhammaan ciidamadii oo isla wada socda waxaan ahay nabadoonkii ka mid ahaa nabadoonnada xawaadle waxaana wataa qorigaygii iyo booshkaygii ayaan wataa ilaahay subxaana wa tacaala ayaana garab taagan dhammaan dawladda soomaaliya ayaana garab taagan shacabkeenna reer hiiraan ayaana garab taagan aan xoraysanno dalkeenna iyo dadkeenna aan xoraysanno aan isku soo baxanno aan isku nimaanno dhammaan baraha ay joogaan dhammaan xoogga dalka soomaaliyeed oo furmaha oo ay ka socdaan dagaalku aan isugu nimaanno dhinaca kale waxaa iyana ka hadlay Maxamed Faarax Khayre wasiirka amniga Hirshabeelle iyo xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale waxaana ka mid ah hadalladoodii qodobka koowaad oo ah sidii dadkan deegaanka ee wada degan loo abaabuli lahaa waayo waxa u jeediin nabadoonka hadda halkan ka hadla nabadoon Cilmi inuu naftiisa iyo dhiigiisaba yani u horay soo deegaankiisa aad ugu difaaci lahaa dhammaan dadka kale deegaanadan degan Hiiraan waa weyn tahay xawaadle bis ma degano ummadda kale in xawaadle ku dabadeystaan oo dadka deegaanka saas kale isku abaabulaan oo dhiigooda horaan ayaan insha Allah ayagana ku boornayna dawladana way ka istaagaysaa meeshan maanta waxa joogo taliyaashii ciidamada qaybahooda kala duwan maamulkii gobolka ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka odayaashii dhaqanka saraakiishii ciidamada xildhibaanadii wasiiradii maamulka dhammaantood maanta waxaa la isugu imaaday teedaan oo ahayd meeshii aan shalay gacanta lagu dhigay shacabka horta u jeediin oo nabadoonadoodii maanta ay ku soo biireen shacabkina awal qoryaha hore u wateen waxaa la rabaa marka dhammaan maanta fursadda la haysta in la beerdaraynin maanta dawladdeennii iyo shacabkeennii iyo saraakiisheennii iyo dhammaan gacmo is haystaan warkama badinaayo waxaan rabnaa in howlgalkan bilowday gobolka ka bilowday dhammaan Soomaaliya inuu gaaro hormuud aan u noqon gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayta Cismaan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in deegaanadan ay ka jirto xaalad bini'aadantinimo tii ugu darneyd waana in si degdeg ah gurmad loola soo gaaro ayaa uu yiri waxaan rabaa ka bilow isteedka dawladda dhexe Soomaaliya nimanka la yiraahdo hay'adaha samafalka Soomaaliya ka howlgala meeshan xaalad bini'aadanimo ka jirta qofka eelku biyaha ka cabi lahaa la gubay weelka wax ku cunayay la gubay gurigii laga gubay saadkii laga gubay carruurtii qaawanaya waa taa aqalkeeda hadda gabadha meesha lagu maraysay shalay in loo gargarayay saad hortiina yahay laba sanana abaar baa lagu soo jiray oo roob Soomaaliya uma diin halkaa waxaa ka jira xaalad bini'aadanimo waxaan rabnaa si degdeg ah in looga jawaabo waa codsanaynaa waxaan fariin u dirayaa maaha codsi ah hay'adaha Hiiraan ka howlgala faritaan waa kuwaas codsi maaha ahum intayna ka howlgalaan wala ka shaqaynaa weyne iyo xaggaa shabaab jooga iyo habaraa tiri iyo calaageela hismati annaga joogna nafteena naf ka qaalisanina ma jirto waxaan rabaa si degdeg ah inay uga jawaabaan fariinteenna waa in ay yimaadaan degmada Maxaas degmada Matabaan eeriyada u dhaxaysa degmooyinka carabka aan ku dhuftay iyo degmooyinka kale ee Boolabarde iyo Beledweyne si degdeg ah inay u yimaadaan General Maxamed Tahliil Biixi Sharif al-Arwaaq oo hogaaminaya howlgalka guud ee ka socda gobolka Hiiraan ayaa sheegay in jabka halkan argagixisada ka soo gaaray uu yahay jabkii guud ee ugu jabi lahaayeen deegaanada farakutiriska ee argagixisada ku dhumaalaysanayaan guud ahaan Soomaaliya qofkii waajibkiisii gutay iyo kii ka gaabiyeyna isku si insha Allah loo abaalmarin maayo taas niyadda gashada waxaan rabaa hal qodob inaan ka iraado shabaab waa jabay
jabka uu hiiraan ku jabayo waa jabka uu soomaaliya oo dhan ku jabay insha allah laga hari maayo haddii ilaaha yidhaahdo shabaabow waad ogeydeen shalay waxay idinku dhacay iyo daraad waxay idinku dhacay tii koraysa waxay idinku dhacay ninkii ka fakadayow oo geedaha madaxa ku hayo isla ciidamadu waa laaban hayaayow waray naftaada la carar ciidan laaban hayaa ma jiro shacab laaban hayaa ma jiro deegaankan dadka shacabka ah oo ku nool ama dadka deegaanka macawisleyda loo yaqaano ma garanhayo waxaan ku tilmaamo ama aan ku ammaano ama aan ku hambalyeeyo ma garanhayo runtii waxay horseed u yihiin sidii aswaa'il xornimada ugu horseedka ugu ahayd ee Soomaaliya waxay horseed ugu yihiin inay cadawga iska hor qaadaan annaguna ka ciidan ahaan iyo ka dawlad ahaanba waa garab siinaynaa wax alla waxaan awoodnana waa la garab taaganahay